gabar 20 jir ah aadna u wanaagsan aadna alla ka cabsi u badan ilaahayna maal badan siiyay nin ayaa gabadhii wuxuu u soo diray saaxiibadiis si ay ugu doonaan markii nimankii u imaadeen gabadhii ayaa wax u sheegay ninka waxa uu ku wanaagsan waxay ku dhaheen ninkan ku sheegayno waa nin taajira kaasoo looga dambeeyay dhanka maadiga laakiin waxa jira wuxuusan aqoon diiniga oo ma yaqaan wax ku saabsan waxaan ka codsanaynaa inaad naga yeeshid codsigan ku soo dirsanay waxay ku tiri anigu uma baahne nin aniga aan wado ee waxa rabaa nin asaga ii kaxeeya jannada ma doonayaba qof yaqaan maadiga warkaasna igala taga ninkii ayaa arrinkii loo sheegay ninku wuxuu ahaa nin kibir badan oo lacag badan ninkaas ayaa yiri waa balan inaa ka arsado naagtaasi wuxuu u tagay sixroole wuxuu sheegay arrintii sixroolihii ayaa ku yiri waa inaad lacag badan keentaa ee beri ii soo laabayo ku yiri ninkii ayaa yiri lacag waa diyaar berina ayuu u soo laabtay wuxuuna ku yiri ii sheeg arrintii wuxuu ku yiri ninkii saaxirka ahaa arrinkan waxba kama qaban karo laakiin waxaan ku sheegayaa saaxirka iga weyn soo arrinta wax ka qabto sixroolihii kale ayuu u tagay balse wuxuu ku yiri anigu naagtaas ma sixiri karo waxbana arrinkaas kama qaban karo ee waxaan ku sheegayaa ninkii ani soo baray sixirkaas wax uga qabto isla markaasba wuxuu u tilmaamay saaxirkii soo baray sixirka wuu u tagay saaxirkii wuxuuna ku yiri saaxirka ayaa yiri waa inaad lacag badan keentaa daartiin gabadhaas lagu sixiro ee subaxii isku keen adigoo lacagtii wada subaxii ayuu u yimid wuxuuna ku yiri saaxirka ayaa yiri anigu gabadhaas ma sixiri karo waxbana kama qaban karo lugaagana hoostooda ma keeni karo xataa waxaan kaalmaystay shayaadiintii iga waaweyneed waxbana way ka qaban waayeen waayo gabadhaas habeenkii markay seexanayso waxay akhrisaa baqara oo dhan saaxirka intuu ilaahay kaalmo weydiisanaa ayuu shayaadiin kaalmo weydiistay laakiin ka shalay wuuna ka toobadkeenay ilaahay dambi dhaaf ayuu weydiistay qisadani waxay ku tusaysaa haddii aad qur-aanka la saaxiibtiin inaysan shayaadiintu waxba kaa qaadi karin oo aad ilaahay ku xidhnaatid على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون